ويدين على كلام حيث صوت رأي ولا شيء إلا ربما مثلا صولية سنة بري إن لقى سمية معمل قابلات ودقدقة غير كل سؤال على الأساس. والله حسوا شيء أنا يرد بيس ولا إلى هو جمال أي واحد جيو حوجي لما نريد بنعدله كان ما أنتوا تلقي لها تايبت بالله لا هاي كويس وجيري وحنا دي أقرأنا إن البنات نقطانين مكان صاي قابله قبل نقطة عدد مدحين نقطتي أنا سوري سنة نقطة سوري سنة حوك الدجا سوري سنة وشيء يمكن جمال حوك الدجا ما كان واحد رواية ده عقل حمانته الأولاد تجي صوماليا إنا هي الأولاد تجي ما نقدر حكينا ليه ما كان صاي قاله هو سير دكانه واحد صعوني ما سوري سنة ما تشوفوني كواحد بوسع أنت كين على سوق عتلو قفصلي سوري دتك لها بتشوي محمد سياد بركي إريا تشوي سوري سنة أفكار كبرتي dadka wala wada daga Soomaaliya waa mid xuduud loo sameyn maayo Soomaaliya leh bal waa Jamaal waa kale Soomaaliya sana ka qaado marka waxyaalaha aankaas kor looma qaado waa wax dhanay carruurnimo weey Soomaaliya sanaag cid degta maanta cid muran ku jirta maaha cid maanta isku haysa oo maanta muran ka dhex taagayna maaha Faisal Salaxley ku dhashay inuu soo doolaala tagaa waxaan arkaa gabdaro iyo aflagaado ay tahay uma soo gudbi karo beeraha diga ilaahna waa og yahay aadamuna waa og yahay gobolka Sanaag waa su'aal degbo saddex laas qoray iyo baran iyo dhahar iyo ergaaw ceelaf weyn iyo garab weey saddex degmo reerka ursigal la goolu dega degmo ergaabana waa la wada dega oo reer Sanaag oo dhan baa wada dega هذا أخرى بتلاقيه سوالة دجاج ووالة ولا دجاج كلام يجي عرف وين قليا دي وحب قليا هبرشة مركب عليه غير كميسان كأنت عليه اللي أجله إنه في صدق معها سبع يراوه وحبك معها وهذا اللي من حقوقنا حين أما نحن نصلي ويا هذا الكسي وسجل يربان تهرتوه هذه دارود بكسيهين دارود نور الشك كبتشرو إدنا عذر إلى يقضى وفيصل يا فيصل كمان كحين كرو mid walba oo kale kaba kaxin karo weeyaan taaro baa ka dhaliyay ilaa RFD ilaa kiilka shanaad bay degaan ilaa iyo koonfur bay degaan ilaa gobolada dhexe degaan ilaa halkay degaan marka waxa leenahay Faisal hadalkiisu niman xuquuqda hayn buu yahay niman war badan hayn buu yahay waliba anaga waxa ugu maqaalaa xilligan xukuumadda aanu haynay oo dawladda Maxamed Siyaad Barre Faisal ninka aan yaraa oo fiican oo dhalinyarada aad loo shaqeyn jirtay oo waliba dadinaca reer shakhs xaq aad loo shaqeyn jirtay oo kamid ahaa abaal baan ugu haynay inaan uga abaal gudnado diyaar baan ahay laakiin hadal xoolihiisa ay wax badan waasiirayso baan u qaadanaynaa shabaal markaan soo qaato shabaal waxa weeye waa nin dawladda federaalka ka tirsan waana nin wasangeliya waana nin hartiya waana nin daarooda waana nin u dhashay Soomaaliya Sanaag u dhashay weeyaan فرحنا سلا لما أوران كرو هوس لو بدي كرو مقام كيسنا مقام سرويا سياسة وباب دنيا نيك مبدأ سياسي يقف لماذا يسويه حيوان كلا دويت هاي waxaan halka rabaa inaan uga jawaabo anigu magacayga Axmed Daahir la yiraahdo gudoomiyaha xisbiga Ucud oo maalin dhaw tagaysay aflagaado dad Soomaaliyeed oo isaga ka magac dheer oo muxuu ahaa farahaan ka badan inuu ku sheego dad yar oo meel la yiraahdo dhahar degan wasiir Jamaal uu ku aflagaadeeyay iyo beesha uu ka soo jeedo waxaan u leenahay Faisalow nik Jamaal waa reer Soomaaliya waa nin ka magac dheer faamilahana kaaga magac dheer isaguna adiga ka magac dheer faamilahana uu kaaga magac dheer yahay dalkana isaga leh waana tagayaa horena waa u tagay haddana wuu tagayaa adigana amar lagaaga qaadan maayo Muuse Biixin amar looga qaadan maayo waa xaqiiqtaas waa dhab haddana uu soo noqonayaa wuu tagayaa Salaxley ha kugu filaato meeshaas dalka ku leedahay ha kugu filaato iyadu Salaxley ha kugu filaato anagu reer caaymayno sidaa ruuxayda laakiin waxaan ku sheegayaa gobolka Sanaag la yiraahdo ninka la yiraahdo Jamaal Maxamed Xasan isaga ka odaya isaga ka wasiira isaga ka madaxweynaha wax walba isaga ka gobolkuna waa gobol ka tirsan dalka Soomaaliya wixii inta dheer oo aflagaada anagu cid kale aflagaaday meena adiga ku eegtay hadii aan joojin
aflagaadada dadka Soomaaliyeed ee maalin walba atiifiyada la taagan tahay waxa weeye waa maalin walbana waan waxa aad sameeyso wax la mid ah baanu sameyn doonaa